munaasabad uu isku soo bandhigay musharax xildhibaan golaha shacabka federaalka Soomaaliya ee sanadka 2021-2025 mudane Cabduqaadir Ismaaciil Cabdulle Doodishe ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Musharax ayaa ku tartami doona kursiga beesha Hilibe Darandoore Mudulood. xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono, odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beeshaas kuwaasoo dhiirigelin iyo bogaadin u jeediyay musharax mudane Cabduqaadir Ismaaciil Cabdulle Doodishe kaasoo sheegay inuu yahay musharax xildhibaan golaha shacabka federaalka Soomaaliya ee sanadka 2021-2025. bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ayaa taageero u muujiyay musharaxa iyagoona kula dardaarmay in si cadaalad ah uu ku maamulo kursiga beesha haddii uu ku guuleysto. ku soo dhawaaw qalbi furan, calool furan, gacmo furan, Hilibe Darandoole Yurubaad ka timid adoo iska raaxaysanayo maanta xabad iyo qarax iyo dhibaato aanan ku haynin kaali maanta tolkaan wax u qaba u timid annagana waa ku soo dhaweynay. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen musharax Doodishe cid kasta oo maxaan ku dhahdaa Hilibe Darandoole oo musharax soo dhaweynaynaa qaasatan Doodishe waa soo dhaweynaynaa walaalkeen waana ku garab taaganahay mar walba insha Allah ilaahay garabkaaga ha galo hore u soo guuleysaan ku leenahay insha Allah. meeshan hadal badan ma looga baahno warkuna waa cad yahay waxaan si sharaf leh oo xushmad leh oo wanaag ku jiro ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Doodishe Cabduqaadir Doodishe waan raacsanahay waan raacinaa garabna waa siinaynaa wax shakina kuma jiro waan nin mudan waxaan leenahay Cabduqaadir Ismaaciil Cabdulle Mahdi soo dhawow dadkaaga way ku taageersan yihiin waxa kaaga daliil ama marxaati ku ah meesha ay kaaga soo boqoleen ama wadooyinka burbursan ee saacadaha dheer ay ku soo jireen adiguna waxaa tahay qof xamaasaysan oo qiiro iyo wadaniyad ku dheehan tahay oo ilaa ay Yurub kaga yimid inuu dadkiisa dhibaatada ama cariiriga haayo wax kaga qabto haddii fursadda ilaahay uu ku siiyo oo aad ku guuleysato kursiga waa kursi furan waa tartan qof walba oo Hilibe Darandoole ah ama inta is soo sharaxday in uu nasiibkaaga ku saacido waxaan ku leenahay habeen dhalad oday ayaan Allah kaaga dhigo mid ku guuleysto quruxda iyo nidaamkeeda iyo saxeedana waa inaad mataqaanaa xuransiga aad soo gashay aad sii dheeraysato. musharax xildhibaan golaha shacabka federaalka Soomaaliya ee sanadka 2021-2025 mudane Cabduqaadir Ismaaciil Cabdulle Doodishe ayaa ka warbixiyay ujeedka uu isku soo sharaxay wuxuuna soo bandhigay waxqabadkiisa marka loo doorto kursiga xildhibaannimo ee beesha Hilibe Darandoole. anu hadda ay doorataan insha Allah waxaan ballan qaadayaa in deegaanada beeshan ay leedahay ay u horeeyaan ay hogaamiyaan odayaasha dhaqanka inay ayaga mataqaana kula xisaabtami doonaan ayagana waajibaadka ani iga saaran inaan macnaha gudan doono duu Ilaahay yiraahdo hadday noqoto mid amni hadday noqoto mid siyaasadeed iyo hadday noqoto mid cilmi dadka ay wax ku bartaanba dhammaan beesha waxaan mataqaana ugu bishaareynayaa insha Allah taala inay mataqaana u istaagaan dantooda dadkan way dayacan yihiin iyo waxa la iska qabsanin ummadda waad ka harteen haddaad tihiin Hilibe qofna waxa ay tagayso hebel waxba ma tarayso ummaddan way dayacantahay waxaan u baahanahay inaa Ilaahay ka cabsataan odayaashina ku dhin u istaagay ciidan qof kaliya wax ma qaba karo ilaa idinka qabataan maahan aniga ma ahan kursi igeey kursina waa ka maarmaa laakiin dadkayga dayacan ayaan meeshan ku arkaa tusaale in soo qaada maanta gudoomiyaha degmada Balcad yaa haysta xilkiisa uu magacaabo ninka la yiraahdo ninka waare uu magacaabo warqadiisa miiskaan la hoos dhigay duqa magaalada Balcad Hilibe iska leh uu magacaaban yahay yaa idin dooday marka ma haysataan xildhibaan federaalka joogo ama kii Hirshabelle joogo midin dooday warqadda lagu soo magacaabay oo ku magacaabo waare way taala duqa magaalada Balcad hoosaan la dhigay waxay idin sheegaysaa taas la xisaabtan la'aanta iyo maxaa iga galada taas ah meeqa wiil dhalinyaraha laamiga Balcad taagan wax barata meeqa jaamiciyaad taagan jaamiciyiin fara badan taagan rag wax wada bartaa wada taagan dhammaantood waxay taagan yihiin jidka
حسابيال إليهن هرشبل وحلا اسكو دويال ماريال وحيلات كهشتان ماله دتك ديغان كبلعد إيدك عسكله ما أنت ما كنت ضيعنتين ما حد ضيع عسكان وحد ضيع عسكان كرسي جنينك كوفر لي كوم مرة هذين ومعناه كرسي مسؤوليته كسر رأسه شداد أدور رأسه بس سبحان الله هذا أنا دورنا كدورته حتى وينه مد قضاء بوس كاسدين بحيو محمد ديق عثمان علي محمد ديق ألفة راضي هي تلفزيون كدلسن مقدشو shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u dirayso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE